وهجاج إن محمود صالح نور فقرة أيان دوني إن أنا ورئيسته برنامج كان إن راتراع تاريخ ده إن محمود بالمركو رورتي أدوغو وركوبان إيجاسي تاريخ ده دي هالكات كل على تي سيدي مركز معادنا دوتكتي horta anigu waxaan ku dhashay meel la yiraahdo Jidali meeshaasuna waa meel taariikhi ah oo wax ku aasan Soomaaliya walba ku aasan waana dhul wanaagsan anigoo yar وأنا قبل كسناك anigoo yar waa gobolka Sanaag weeyaan waxa la tahay aad baa loo yaqaanaa meel Soomaaliya wal ku aasan yahay aad baa loo yaqaanaa waana lagu faanaayo wax la yiraahdaa Jidali nin haysta geljiru markuu ciyaarayo Jidali nin haysta jannadii muxuu ku falayaa وتير الميجا aabbahay reer cadmeed buu ahaa marka islaantii buu u soo qoray waraaqo yiri waxaan rabaa wiilasha inaad mid soo dirtid taxi walow ah taxi qolada taxida wada aniga markaa hooyada imtixaan bay samaysay aniyo mid kale aan walaalahay afartii aayadood ay ku tukan jirtay bay maxay na bartay markaas imtixaan gelisay imtixaankii baan anigu ma ahayn kii ninkii u weynaayay dhaadhaadkan ahaa markaas aniga ay doorashadii igu dhacday saasan cadan ku tagay aad baan u yaraa bixsano meelahaas bay tahay inaan ahayd marka khulaasto waxaan galay oo ka baxay iskuulka 54 iskuulka sare St Joseph baadarigii cadan baa loo yaqaanay St Joseph High School markaasaan shaqada dawladda bilaabay siyaasad iyo hawlahaasna marka shaqada dawladda Ingiriiska halka xukuumadda cadan baad u bilowday markaas dawladda hoose oo cadan baan maxay shaqada ka bilaabay ururadii shaqaalaha cadan oo ahaa xarakada ugu xoog weyn cadan oo axsaabtana ka xoog weyn waayo 20 daqiiqadood bay dhul iyo badba ay xiri kala jireen cadan oo damka siin jireen cadanna markaa cirkaas ay mareysay kontonaadkii dhaxdiisii 3 markab baa maalintii soo geli jiray waxay ahayd dekada saddexaad oo adduunka ugu weyn xagga markaa halka Dubai ku jirtay markaa halkaas ku jirtay kaba weyneyd 3 markab Dubai lama hayna soo galaan markaa waxa ku dhalay inaad xarakadii shaqaalaha uradii shaqaalaha aad gasho shaqaalaha horta taas maxay tahay halkaas aan ka bilownay waxa iyana markaa bilaabantay oo iyana cirka mareysay xarakadii Jamal Abdul Nasir iyo mideynta carabta iyo xarakadii dhaqdhaqaaqii Soomaaliyeed oo ahaa shanta Soomaaliyeed hal la isu geeyo iyo maxay tahay dhulkii oo Ethiopia maxay tahay la bixiyay hawda reserve area la bixiyay markaana ahzaabtii baa kacday Masar markaa waxay bilowday inay inagana caruur badan inaga qaado oo iskuulada Masar u dirto xiriir wanaagsanna xarakadaha dhaqdhaqaaqa ayna siiso inkastoo aanan SNL ahaan aanan ku xidhnayn maxay tahay ama Masar iyo cid kaleba marka farcigii ugu horeeyay ee laga furay in cadan ayaa ii sheegtay inaad wax ka asaastay farcigii ugu horeeyay waxaan ku asaasnay 758 baa maxay tahay waxaan qaaday aanu bilownay ururka shaqaalaha xaruntiisa ayaanu shirki ugu horeeyay maxay tahay ku qabanay raggii waaga maxay tahay aan wada asaasnay waxa kamid ahaa Allahu naxariistay Ali Warsame Allahu naxariistay Duqsi ma Allahu naxariistay Samwadaya geel jira kamid ahaa Amnuur baa kamid ahaa rag badan goormaad markaa u soo wareegtay xaggii markii xornimadii la qaatay in xaggan Soomaalidii waxaan u soo wareegay ma hortaanka idinka qisada ku wada intaan soo wareegin annagoo joogno oo isbeel wanaagsan marayna yaa xogayahaygii guud cadan lagu xidhay Allahu naxariistay Maxamed Ibraahim Cigaal 3 bilood baa lagu xukumay
aabbihii soo dhintay baa markaa ay noqotay in aabbihii loo qaado la yidhaahdo odagiiba la aasaya ingiriiskana dee aabbihii magac weyn buu ku lahaa MBE buu ahaa member of the British Empire taytalada ugu waaweyn oo ingiriiska ayuu maxay tahay lahaa qandaraasyada dowladda badanaaba waa berbera isagii raggu ku jiraa baa qaadan jiray markaasaa la sii daayay sidii si uu aaskii uga qayb galo maxay tahay aabbihii waxaan markaas soo noqday iyadoo doorashadii ay maxay tahay axsaabtu ay dhacday oo exactly waxay ahayd May bay ahayd bil keliya iyadoo ay oo sanadkee markaa waxay ahayd muxuu ahaa lixdankii bay ahayd iyadoo bil keliya ka hadlay horta kaalin weyn baanu ka qaadanay doorashadii la dooranayay muxuu ahaa xildhibaanada waa tii 32 xildhibaan ay SNL iyo USB ay maxay tahay heleen horta USB aan kuu sheegay kaalin weyn waxaa ka qaatay inkastoo deegaanku ay gacan siiyeen oo deegaanku ay kaalin weyn ka qaateen oo iyaguba sameeyeen oo shirkii muxuu ahaa gol khayreed iyo gol nabadeed wax la oran jiray galmaayo laascaanood lagu qabtay oo reer Boorama ka soo qayb galeen oo reer Laasqoray ka soo qayb galeen oo USB la sameeyey laakiin kaadirkii dhaqaajiyay xisbiga oo madaxda ka noqday awleere iyo ina jaamaciis iyo raggaas oo dhan cadan baanu ka soo diray cadan waxaanu ka soo diray raggii markii dambe maamulkii SNL oo dhan la wareegay oo yani xisbiga cagaha ugu taagay tirarka noqday oo ka mid ahaa duqsi ka mid ahaa maxamed cali faarax hargeysa isaguna looga dhigay secretary iyo ibraahim cali ducaale marka in maxamuud taariikhda ee halkan ka soo qayb qaadatay marka laga yimaado aan soo koobnay mesela tii dambe ee markii dambe dawladnimada ay dhalatay maxaad qabatay wataan ku doorashadaanu ka qayb galnay 73,000 oo shilin baanu ka soo diray cadan 73,000 waaga lacag weyn bay ahayd marka loo eego tii dambe waxyaabaha aanu qabanay xisbiga horta waa baaba'ay wuxuu ku baaba'ay xamar bay tageen xamar bay ku milmeen SYS bay ku milmeen halkan markaa waxay noqotay in xisbigii laga saaro iyagii dibadda laga dhigo waxa markaa ay noqotay in xisbigii booliisku xidho khayriyada uu xidho oo maxay tahay la khaarijiyo halka waxaan ka bilownay ururadii shaqaalaha cali ganaad oo wasiirka muxuu ahaa tacliinta الله نحرس استراك بنقسم من معلمينتا مشاركة إنه محيتي لوكر قادوا ما معلم بعد مركا ما أنا أقول أنا سكرتري جنرال سومالي فيدريشن أوف ليبر أورك شقالها حقيقة جود أورك شقالها سومالي لاند مركا واحد شري أورك بنوكتا سومالي إيدن إيرويز بابليك وركس ووحي شغاله هو مركا بدحوها تقول كذا حسن ما بدحوها كبعدي حمر بان مايتي دواتي حمر لو تجي قرمت حمر كوغوري سادوري تبركا حمر وحا يغوريسي انيغا وحا يغوريسي كوبيو صدح يو لحدنكي اي افري لحدنكي ميلهاس افري لحدن صدح يو لحدنكي لكن واي من جري وتجي جري marka ururadii shaqaalaha baanu mideynay waxaanu kaloo mideynay oo halka ka asaasnay SNL USB grade yaanu isu geynay marka waxa la sameeyay waxa la yiraahdo SDU Somali Democratic Union in fact beeshii ururka shaqaaluhu halkiisii waad markii la xilay maxay ahayd khayriyada halkaasaan markaa shirkii ugu horeeyay SDU-da ku qabanay SDU doorashadii ugu horeysay gashay waa 15ka xildhibaan ya ay heshay 64 bay doorasho 64kii waxaan ka qayb galnay shirkii oodweyne lagu qabtay oo reer Somaliland oo dhan isugu tageen oo slogankiisu ahaa
أودي أب كوين أودي أب كوين معناته الصومالي اللي عنده marka goormad adigu markii buurtaan noqdaan marbaantaan noqdeen war haddaynu Soomaaliland nahay danteenu waxa weeyaan inaynu maxay ahayd midowno oo mowqif midaysan aynu qaadano markii dambe goormad markaa ururadii shaqaalaha iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa hay'adan ILO aad inta badan u shaqaynaysay goormad ku biirtay waxaan ku biiray waxaan ku beeray horta waxaan ka shaqeeyay wasaaradda leebarka shaqada waagi dawladda Cabdirasaaq baa war wax khibrad leh muxuu ahaa xaggan ururada shaqaalaha iyo waxa baad ka mid tahay inta khibradda leh kale oo shaqeyn marka wasaaradda maxay tahay leebarka yaan maxay tahay shaqada ka bilaabay halkaas waxay noqotay inaan shirarka maxay tahay adduunka oo shaqaalaha iyo aan ka qayb galo halka anigoo ku jira baan waxaan helay scholarship muxuu ahaa 7 ilaa 9 waxaan joogay muxuu ahaa Holland jaamacadda Holland aan galay halkaa waxaan ka soo qaatay Masters of Social Science oo la socda laankii muxuu ahaa shaqaalaha iyo labor economics iyo dhaqaalaha laborka 9 baan markaa soo noqday anigoo badayar antak baan markaa macallin ka noqday 2 bilood labor waxdana wax lagu soo xushay wasaaradii muxuu ahaa laborka halkaasaan maxay tahay muddo 2 sanadood markaan joogay baa haddana madaxtooyada la geeyay madaxtooyada markaan 2 sanadood joogay oo aan ka mas'uul ahaa 6 wasaaradood waaga wasiir ma jirin waxa la oran jiray secretary xogayaashii kacaanka baa la oran jiray marka dalka waxaanu ku maamuli jiray 4 sadar ka ku socota ka timi ku socota niman xogayaal ah oo madaxtooyada jooga oo mid leebarka qaabsaya mid maxay ahayd ciidanka qaab militariga qaabsaya midna anigu lix wasaaradda social affairs ka arrimaha bulshada dhexdaasaan qaabsanaa war markaan 2 sano joogay baan naftayda u baqaan meeshan meel la sii joogi karo maaha markaas aan shaqo ka helay maxay dibadda international labor muxuu baalkii ILO ya 10 sano halkaa ka shaqeeyay waxaan markaa wakiil u noqday muxuu ahaa permanent head of permanent delegation of ILO waa jaamacadda carabta 5 sano baan 2 sano waxaan joogay muxuu ahaa baashi Qaahira 5 sano waxaan joogay Geneva waan dekaa head of madax u ah xafiiska jaamacadda carabta sheegayo Baghdad baan markaa loo guuray waa tii laga baxay Qaahira 5 sano markaa joogay Iraq oo aan qaabilsanaa arrimaha dibadda intaas markay dhamaatay baan hadaba way ugu filan tahay xisaabtayda waa ka qabaa in ugu filan dibadda muqdishaad ku soo noqotay lama horaan waxa u jiilaale muqdishaan ku soo noqday sanadkeebe waxay ahayd 4 markaas walaaqii baa bilaabmay siyaasadii baad bilowday markaa ninku maradu siyaasi kama gaboobay dawlad baa agteed ma marin waxaan markaa siyaasadii baan galay waxaan markii dambe ku soo galay muxuu ahaa manifestogii rag mu'assisiintii manifestogan ka mid ahaa 2 biloodna xabsiga maxay ahayd siyaad baraan marti u ahayn xabsigii muqdisho waa tii maxay tahay maxkamadana la keenay waa taan isku tukanay waa tii magaaladii olshay saadowlad socotid waxay noqotay bilqasbarka qoladii ugu horeysay oo la sii daayo oo maxkamadii lagu sheegi jiray badbaadadu ay sii deyso baanu ka mid ahay ragna way kaga dhinteen intii hawsha ku jirteen allah u naxariistay masabqor iyo xaashi iyo xaashi waliye ragii ku jabay xabadu kaga dhacday wax ka mid ah sakhraan oo rag badan baa naga dhintay
iyo rag wax la xidhiidho iyo wax baxsada iyo markii dambe markaa dawladdii dhexe Soomaaliya dhacdayna xagee timi naafatu raggii baxsaday buu ahaa in aadan cabdalle raggii yiri ma qaadi karo oo mas'uuliyadda reerkayga baa igu kalifaysa taariikhdu waa iska badan tahay marka markii dambe xaggan aad soo wareegtay Hargeysa markii dambe oo ay aan manifestogii iyo wixii filimkeeda dhammaanay waxaan dee waxa bilaabmay xarakadii halka ka socotay yay noqotay inaan maxay tahay xidhiidh la yeelano waxaana hogaaminayay allah u naxariistay Garaad Cabdulqani Sakhraan waxay noqotay markaa inaanu dadkan wada dhashay oo oday abka dhawaan weligayaba oran jiray la isku diro oo la dagaal sokeeye la bilaabo inaanu markaa ay noqoto inaanu hawdka mashaaxno bilo dhan saanu u joojinno dagaaladaas laga dhex abuurayo deegaankii aanu ka dhalanay iyo SNM halkaa waxaanu isugu nimi muxuu ahaa dalnood ayaanu maxay tahay wufuud dabayaaqadii 90 bayd qararo waa dabaqayadii maxay tahay 90kii qararo gowla laale dalnood dhulkaasaanu maxay ahayd wufuudda SNMta isku arki jiray xiriirna aanu wada sameynay dagaalkiina markii burcal la yimiba orri heshiis baa la ahaa oo 90kii nabad baa la qaatay oo wafdigii la sacaanood ka yimi caleemo qoyan baa maxay lagu soo dhaweeyay كبعد دولتي وحنا كقبتي مركز تي عبد الرحمن أحمد علي مدحويني وجوه الرئي تي لبعض محمد حاج إبراهيم عقال تن كلاي مكاين داير يلا كاين waxaan ka qayb galnay oo kaalin weyn ka qaadanay oo aan ku faani karnaa shirkii ka dhacay Boorame oo aanu ka soo bilownay muxuu ahaa Djibouti waxaan kaloo kaalin ka qaadanay dagaalkii socday berbera ka socday oo beelaha wada dhashay berbera la isku diray dagaaladoodii ilaa BBC-da waanu ka Sakhraan iyo Cabdulqani iyo waanu boqofkaanu ka taaganahay dagaaladaas aan loo baahnayn oo la wado marka adigu xil siyaasadeed mar wasiirka arrimaha dibadda noqotay maan shirkii waxaan ka qayb galay shirkii muxuu ahaa horta Boorame kabacdi Addis Ababa tagnay shirar baan cigaal baan hogaaminayay shirka waa ka qayb galay cigaal dawladdu sameeyay waxaan ka qayb galay wasiir khaarijiyo ka dhigay marka muddo markii dambe shirkii 97 muddo 7 sanadooda baan 6 sanad ku dhawaad baan maxay tahay wasiirka arrimaha dibadda ahaa markii dambe cusbitaal baan galay waxa la yiraahdaa shaqada ka fadhiisata sanad ugu yaraan waan ka fadhiistay markii dambe oo ilaa intuu dhimanayay wax siyaasada oo aan galay لأن السبب أنا قبل حامشين يو سياسات كلا وكلام ما أنتوا دنتي بان وعن مؤسسين تبانا كل مية يا إنك اللي بعد بانها أو مؤسس كا هذيك أحمد سيلانيو أنا أحمد سيلانيو كل مية أنا محيتي مركا قالي أوان هذا محيتي قدوم يكو كان نقطة إلى وارد ويتو أو مدحوينها ما أنت تدلك شوكا ويري waxa lagu baahan yahay inaad khibradaada laga faa'iideysto oo iga dhigay dinjire France ila halka hadan soo gaarso waa dhamaatay waad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay maxamuud aad baad mahadsantahay